halganka loogu jiro ka mid noqoshada xukuumadda cusub ee Soomaaliya ayaa ka socda caasimadda. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalka dib ugu soo laabtay. Waxaa socda la tashiyadii ugu dambeeyay dhismaha xukuumadda cusub. Inta u dhaxaysa 20-ka ilaa 25-ka bishan ayaa la shaacin doonaa liiska xukuumadda cusub sida ay wararku sheegayaan. Dadka sida weyn isha loogu wada hayo fursadooda xukuumadda waxaa ka mid ah xubnaha xisbiga UPD ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh. Warbixintan waxaan kaga hadlaynaa xubnaha ugu cadcad inay ka yimaadaan dhanka xisbiga UPD ama haysta fursad ka badan 60% si ay uga mid noqdaan xukuumadda cusub ee Soomaaliya. aad ay u badan yihiin dadka wax raadinaya ee xisbigan ka tirsan, laakiin looma badinayo inuu ra'iisul wasaare Xamse dhisi doono xukuumad wada UPD ah. shakhsiyaadka: Axmed Macalin Fiqi, xildhibaan, safiir, wasiir iyo taliye hore oo ka mid ah xisbiga UPD. Axmed Macalin Fiqi waxaa loo arkaa inuu hogaaminayo dadka haysta fursadda ugu xoogan ee ka mid noqoshada xukuumadda cusub. Fiqi isaga waxaa la sheegay inuu rabay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada, laakiin xisaab ahayd inay beesha kore 2 wasiir hesho oo B ah ayaa hadda u muuqata mid aan suuroobi karin. waxayna taasi keenaysaa ayaa la leeyahay in reerkaasi la siiyo 1 wasiir oo A ah oo xoogan, wuxuuna noqon karaa wasiirka arrimaha gudaha. 2. Xasan Macalin, wasiir iyo xildhibaan hore. Xasan Macalin wuxuu ku jiraa dadka ka tirsan xisbiga UPD ee ugu cadcad ka mid noqoshada xukuumadda cusub. Xasan Macalin oo xoogaa cidhiidhi kala kulmayay Cabdiraxmaan Caynte iyo xildhibaan Xuseen Iidow ayaa hadda la sheegayaa in rajadiisu xoogan tahay. ila ka tirsan xisbiga UPD waxay noo sheegeen inuu Xasan Macalin rabo in laga dhigo wasiirka cadaaladda, laakiin lama hubo inuu isla wasaaraddaasi heli doono. waxaa si xoogan fursadiisa ka mid noqoshada xukuumadda. 3. Xildhibaan Beene. ninkan oo ka mid ahaa xubnaha UPD ee dib u soo helay kuraastooda xildhibaannimada culays badan ma haysto. gudaha UPD waxaa laga soo wariyey inuu dalbaday wasiirka qorsheynta, laakiin uma badna inuu heli doono. dadka qaarkii waxay sheegayaan inay macquul tahay in la siiyo wasaaradda caafimaadka. 4. Faarax Sheekh Cabduqaadir, xildhibaan iyo wasiir hore. Faarax Sheekh Cabduqaadir wuxuu ka mid yahay xubnaha maskaxda u ah kooxda UPD. cilaaqaadka rubac qarniga ah ee isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh ayaa hoos u dhigaya in xukuumadda laga weyn karo. ilaa xogtan dusiyey waxay Faarax siiyeen rajo aad u xoogan oo uu kaga soo muuqan karo xukuumadda soo socota. 2 wasaaradood ayaa la hadal hayaa inuu midkood qaadan doono. mid waa wasaaradda batroolka, midna waa wasaaradda waxbarashada. Faarax Sheekh Cabduqaadir wuxuu waqtigiisa ugu badnaa geliyey arrimaha waxbarashada, waxaana la aaminsan yahay in haddii uu wasaaraddaasi qabto inuu wax badan oo horumara ku siyaadin karo waxbarashada dalka. 5. Cabdirasaaq iyo Sanbalolshe. xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed, wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya, iyo xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe oo isku xisaab ah waxay ku loolamayaan wasiirka beeshooda. labaduba waxay ka tirsan yihiin xisbiga UPD. wasiirku labadooda ma dhaafi doono. mid gudaha kooxda ayuu ku xoogan yahay, midna dhanka dadweynaha. 6. Axmed Xasan. ninkan waa xogayihii maaliyadda ee xisbiga UPD. waxaa la filayaa inuu xukuumadda cusub ka mid noqdo, taasoo meesha ka saaraysa Cabdullaahi Carab, wasiirka waxbarashada ee xilligan, kaasoo aad ugu dhowaa ra'iisul wasaarihii hore Maxamed Xuseen Rooble. marka laga hadlayo gudaha xisbiga UPD, xubnahan ayaa ilaa iyo hadda haysta rajada ugu badan ee ka mid noqoshada xukuumadda cusub. waxaa jira iyaguna dad kale oo wax raadinaya, balse rajadoodu ma burna. maxay kula tahay adiga?